Waraabuhu waxa uu ka mid yahay boqortooyada xayawaanka Animalia, bahda laf-dhabarleyda ah, gaar ahaan bahweynta naasleyda Mammalia. Sidoo kale waxa uu ku jiraa dugaagga hilib-cunka ah ee ugu caansan qaaradda Afrika. Qoyska weyn ee waraabaha, bahda cilmiga saynisku waxay ugu yeeraan Hyaenidae. Asal ahaan waxa uu ka soo jeedaa qaaradaha Afrika, Aasiya iyo Jasiiradda Carabta. Luqadda Ingiriisiga waxaa loogu yeeraa hyena, Carabigana dabcun. Afkeena Soomaaliga guud ahaan waxaa loo yaqaanaa waraabe ama dhurwaa. Dheddiggiisa candho dheer, dhashiisana wishiir. Waraabaha cimrigiisu waxa uu gaaraa 20 ilaa 25 sano, culayskiisuna 30 ilaa 80 kiilo, halka uu dhererkiisu gaari karo 95 ilaa 150 sentimitir. Waxa uu leeyahay 40 hidde-side iyo 34 ilkood. Sidkiisu waxa uu u dhexeeyaa 90 ilaa 110 maalin, isaga oo badanaaba dhala 2 ilaa 4 ilmood, kuwaasoo ku qaangaara sanad ama sanad iyo bar. Waraabuhu saacaddii waxa uu jari karaa 64 kiiloomitir. Waxa uuna caan ku yahay qaab dhismeedka jirkiisa oo ah inuu weyn yahay qaarka hore una gaaban yahay qaarka dambe. Waraabuhu waxa uu ka mid yahay xayawaanada leh dhiigga diiran ee loo yaqaano warm-blooded iyo kuwa leh halka calool ee loo yaqaano monogastric. Sidoo kale waa xabdaaq aan dhaafin bakhtiga ah, qurunka iyo cuntooyinka haraadiga ah ee uu la kulmo, isagoo ku jira xayawaanada dadcunka ah ee loo yaqaano man-eaters. Waxa uuna maalintii quudan karaa hilib ka badan 18 kiilo. Inta badan waraabuhu waxa uu ku nool yahay qaaradda Afrika, waddamada Kenya, Tanzania, South Africa, Botswana iyo Namibia, gaar ahaan dhulka xayawaanaadka ee Masai Mara, Serengeti iyo Okavango Delta.